kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray waxa ay cadaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano 12 sano la soo dhaafay dowladii timaadaba ay isbedelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo una yahay shakhsi nadiif ah fakarkayga iyo visionkayga ku shaqayn doona oo core value ama principle kan ku shaqayn doono ama asaaskan ku shaqayn doono ay koob ka tahay amaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalad inaan ku shaqeyno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqarada aan u naxariisano oo aan caawino arinta cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si cali ah igu codeeyeen anigana waxa ii muuqda oo aan istusay core value inaan ku magacaabo shakhsiga fiican shakhsigan oran karo wuxuu ula shaqayn karaa mabaadi'deeda waxaan u shaqayn karnaa shacabka Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa inuu hawshiisa Ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haduu Ilaahay yiraahdo si uu u guto waajibaadkiisa anigu waxaan haystaa muddo 30 casho inaan magacaabo maanta waa maalintii 16aad ma doonayo dalka inuu waqti dambe ka khasaaro ama ka lumo isagana waxaan ku boorinayaa marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo 15 casho inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ee ugu shaqayn doonta mabaadiida aan aaminsanahay dadka uu magacaabay inay noqdaan dad wanaagsan oo shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeeya Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshan noo fududeeyo hawshan hawl sahlan ma aha si degdeg ah inaan u galno hawlaha ummadda ay noo idmatay shacabka Soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageero buuxsiiyaan What are the